ولا سعتانو meel walba waxaad moodaa cadawga inuu soo dhiiro dhacsaday inuu Puntland dhibaato ka soo biyo laakiin waxaan u sheegayaa in Puntland iyo shacabkeeda dawladda iyo xukuumad iyo shacab isku duuban inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacdaan inay ilaashadaan waana ka adkaanayna oo xaqiiqadu taa way insha Allah idinka ilaa sababtoo ah baadil iyo xaq darro ayay ku socdaan annana xaq ayaan ku taaganaa Puntland cidna ma gardaraysato cidna ma daandaansato cid walba oo soo bida amni iyo wanaagna waa ay soo dhawaysaa oo hadda waxaan ka hadlaynaa markhaatiga dadkii madaxweynaha ka hadlayay inay niyad wanaag soo dhaweeyaan ilaahayna waa uu nagu taageerayo qalbiga iyaga wanaagsan iyo niyadeeda wanaagsan intaba iyo Soomaalinimada iyo Islaamnimada iyada ayaa naga dhaba u jeedaa marka Puntland way badbaadaysaa wayna jiraysaa iyadoo xoog leh oo wanaagsan oo qurux badan bay jiraysaa cadawgeedana waa isaga filantahay waxaan ka xumay inay jiraan dad dariskeena oo aad moodo inay taageerada shabaab ay waqti ku iibsanayaan waan ka xumahay waxaan u sheegayaa sabab wax tirada yiri ila bay sakuriyo adiga waay cid u dambaysa oo shabaab dhibaateynay inay tahay kuwa ayagu hadda ama maciin biday ama rabeen anaga nagu dhibaateeyaan weeye kuwa runtii dhibtu ku dambeyn doonta saasan u sheegayaa waxaan rabnaa marka dariskayaga inaanu nabad ku wada noolaano inaan la isku fidnayn shabaab oo isku taageerin ayaan anigu ku baaqaya sababtoo waxa weeye ciiday shabaab badbaadinayaan iyo sharwadayaal ma ay jirtee dhibtu waa ay taaban doontaa cid kastoo isku dayda inay waqtigu iibsato waxaan ku dardaarmayaa marka dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba in ay nabadgelyadooda ilaashadaan inay cadowga meel uga soo wada jeestaan dhibta ku haya Soomaali oo dhan waxaan u maleynayaa Puntland waa ugu yartahay inta dhibta ku hayaan Soomaaliya marka Soomaali meel kasta ay joogto inaanu iska kaashano in cadowgaasi dalka ku soo duulay oo mujrimiinta inaan meel uga soo wada jeesano waana ka adkaan doonaa insha Allah Soomaaliya oo mid ah oo meel wada jeedo oo wanaagsan ayaan rajeynayaa insha Allah waqti aan dheeray hambari ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan gaar ahaan dadweynaha reer Puntland ciid iyo farxad ku ciid insha Allah aad iyo aad baan u mahadsantahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi